daawadayaal waxaad la socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaan soo gaarnay aniga koox wariyaalaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed ka tirsan wadadii galabta ama maqribkii ka dhacay qaraxii masiibada ahaa ay kooxaha argagixisada ugus al-shabaab ee al-qaacida ay ka geysteen halkan wali ciidanka qalabka sida ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ka wadaan gurmad ku aadan dadkii halkan ku waxyeeloobay wali waxa socdo gurmadka ay wadaan ciidanka oo dadka qaarkood laga soo bixinaya goobaha hadda qaraxa uu ka dhacay ama dulba halkan waa hotelka Central ee magaalada hotelka Central waa goobta uu qaraxa ka dhacay sida u jeedaan qaraxii galabta ama maqribkii caawa ka dhacay ayaa si weyn u burburiyay sidoo kale hotelkaasi ku dhagan waa Naasa Hablood sidoo kale halkaasi sida u burbursan tahay daawadayaal aad u jeedaanba waxa saameyn ku yeeshay qaraxi halkan waa maqaayada Banooda oo hadda dhabarkeena ay ku soo aadin doono ayaduna waxa ay kamid tahay goobaha mashquulka badan ee galabtu kooxaha argagixisadu ay dhibaatada ay ka geysteen wali hadda waxa socoto gurmad ku aadan dadka halkan dhaawaca ama ka soo gaaray ama dhimashada waxa had inta ku sugan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kuwa dawladda hoose waxa ay wadaan gurmad waxaana hadda socda sidii dadka halkan ku dhintay meedadkooda loo soo bixila wararka hordhac ah ayna helno waxa kamid ah in halkan uu ku dhintay wasiirkii xigeenkii hore xanaanada xoolaha ahna xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya dawladii hore xildhibaan Cabdinaasir Gaarana aadan sidoo kale waxa tirada way sii kordhi kartaa qasaaraha way kordhi kartaa ana qudheed waxaan arkay dad badan oo halkan ku dhinteen tir ahaan lagu qiyaas karo ilaa 10 qofood wali dhaawacyaduna waa ay jiraan gurmad ayaa socdo waxaan isku dayi doonaa inaan la hadalno mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaan ku soo sugnaan doonaa halkan si aan wax badan uga ogaano waxa dhacay waa tahay wali waxaan idin tusinaynaa baawurti burburka ama saameynta uu ku yeeshay baawurkana u jeedaan waa baawurti sida weyn u burburay maqaayada waatana goobahan dhan waxay ahaayeen goobo aad u mashquul badan oo ay ka socotay ganacsiyo iyo wado aad u mashquul badan oo isticmaalaan waxaan idin geenaynaa maqaayadan Banoodo waxa maqaayadan hadda galabta ama ku casriyeynaya dhalinyaro Soomaaliyeed isugu jiro qaybooda kala duwan mas'uuliyiin iyo shacab bal waxa qasaaraha ama dadkii ku dhintay hordhaca wali ma sheegi karno balse waxa socdo gurmad maamulka gobolka Banaadir halkan ku sugan dawladda hoose waxay wadaan gurmad mid kamid ah goobjoogayaasha oo nala hadlay ay oo halkan ku sugnaa ayaa wuxuu inoo sheegaya waxa dhacay in sida hadda oo gurmadku u socdo magacayga Xasan Cabdi Ismaan Saciid waa la yaabanahay ilaa haddeertaan maskaxdeeda ma siinayso waxa ku baxay Soomaaliya dil dhaho 20 ilaa 25 oo waliba si silac ah ugu dhimatay sida u jeeda haddeertaan waliba intaada imaanaha ka hor markuu qarax ka dhacay nin hataa waxa jira oo ka bixin baabuurka ay leeyihiin Turkiga raaytoriis macala qashinkiisa dhan ku fadhiisteen qaarka hoose horta ma haysto qaarka hore u baahan yahay ilaa hadda inta kale tana dhowr ciidan oo ka bixin waa jiraan oo ay koonol laga baxshay ay koomiidan laga baxshay wallahi meesh saa'id ilaa hadda tan gudaha lama gelin wax ciidan oo galan wala yahay wax shacab oo galan wala yahay waa laga cabsi qabaa waxa leeyahay Soomaaliya hadana dad waa ku jira waliba saa'id wixii hotelka say u dhamaayeen hal qof lagama soo bixinin hal qofna lama gelin oo hataa aan noqda shacab aan noqda ciidan wali sidii loo dhoobaya sidii ay u dhaceen laamiga ka qaadayna laamiga ku egnaa wali wax hadda ilaa inta dadka tira qaaday ilaa wallahi aniga ahaanteyda laba nolol ku qaaday oo dhagax aygo ku dhoobayin korkooda ka bixiyay iyo kuwa nolol tiradooda gaarsi karay ilaa 5 ilaa 8 halkan waxa isticmaalayay dad shacab ah waxayna kamid tahay wadooyinka sida weyn ay u isticmaalaan dadka isku kala goysha degmooyinka Xamarweyne iyo Cabdicasiis aniga waa Cabdirashiid Nuur Ibraahim